kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada shabakada codka Tolmoon filimka taxanaha ay soo saartay shirkadda filimaanta ee Netflix September 2019 ee The Spy oo laga yaabo in qaar badan oo idin kamid ah daawadeen ayaa laga metelay qisada mid ka mid ah basaasiintii ugu caansanay sirdoonka Israa'iil ee Mossad Kamil Amin Sabit oo magaciisa rasmiga ah yahay Eli Cohen ayaa intii u dhaxaysay sanadihii 1961 ilaa 1965 Israa'iil u soo gudbin jiray siraha dawladda Suuriya halkaas oo calaaqad dhow kula yeeshay hogaamiyayaasha siyaasadda iyo kuwa militariga ee Suuriya heer uu gaadhay inuu noqdo la taliyaha sare ee wasiirka gaashaandhigga ugu dambeynna sirdoonka Suuriya ayaa soo afjaray howlgalka Cohen waxaana meel fagaaraha lagu fuliyay dil daldalaada sanadkii 1965 Cohen oo ka dhashay qoys aad ugu dhegan diinta Yuhuudda ayaa sanadkii 1924 ku dhashay magaalada Alexandria ee dalka Masar iyadoo aabihii ka soo guuray magaalada Xalab ee ay ka taliso dawladda Suuriya sanadkii 1914 waxaana uu wax ka bartay jaamacadda Faaruq ee Qaahira waqti kadibna waxa uu ka hadhay wax dhigashada jaamacadda waxaana uu duruusta ku qaadan jiray gurigooda kadib markii uu carqaladeyn kala kulmay ururka Ikhwaanul Muslimiin aabihii iyo hooyadii iyo saddex walaaladii ah ayaa u laabtay Israa'iil sanadkii 1949 balse Cohen waxa uu ku hadhay Masar isagoo ka qayb qaadanaya dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Yuhuudda ee bariga dhexe kadib waxa bilaabmay olole ka dhan ah Sahyuuniyadda waxaana la soo qabtay sanadkii 1951 waxaana laga qaaday waraysi la tacalluqa dhaqdhaqaaqyada Yuhuudiyeysan ee uu wado inkastoo wax cad lagu waayay dawladda Masar ayaa kordhisay cadaadiska ay ku haysay Yuhuudda waxayna qaar badan oo kamid ah ka caydhisay dalkeeda Cohen waxa lagu qasbay inuu dalka ka baxo bishii December sanadkii 1956 ciidamada difaaca Israa'iil ayaa shaqaaleysiiyay Cohen sanadkii 1957 waxayna ku meeleeyeen sirdoon military halkaas oo uu ka noqday falanqeeye sirdoon shaqadaas ayuu ka qaaday caajisnimo wuxuuna isku dayay inuu ku biiro Mossad balse waa ay diiday wuuna xanaaqay markii Mossad diiday kadibna waxa uu iska casilay sirdoonka militariga labadii sano ee xigay waxa uu shaqo ilaaliye ka ahaa xafiiska caymiska ee Tel Aviv sanadkii 1959 waxa uu guursaday Nadia Majald oo kamid ahayd muhaajiriinta Yuhuudda ee u hijrooday Ciraaq taasoo ay walaalo yihiin qoraaga Sami Michael waxay iska dhaleen saddex caruur ah waxayna degeen magaalada Batiyam ee Israa'iil Mossad waxay shaqaaleysiisay Cohen kadib markii agaasimaha guud Meir Amit baaray faylalka dadka soo codsaday inay sirdoonka ka noqdaan Mossad ee la diiday markii uu ku sameeyay dhayndayn faylka Cohen waxa uu arkay inuu noqon karo mid ku haboon howlgallada ay uga baahan yihiin Suuriya muddo 2 week ah ayay Mossad si dhow dhayndayn iyo kormeen ugu haysay dhaqdhaqaaqyada Cohen aakhirkiina waa lagu qancay inuu ku haboon yahay in la qoro tababarna la siiyo Cohen ayaa markiiba lagu wargeliyay inuu ay Mossad go'aansatay inay shaqaaleyso uu qaato koorasyo 6 bilood ah oo degdeg ah oo dugsiga tababarka Mossad tababar kadib markii la imtixaamay waxa la ogaaday inuu leeyahay dhammaan tayada howlwadeen looga baahan yahay kadib waxa loo sameeyay aqoonsi been abuur ah kaasoo uu ku metelayo ganacsade Siiriyaan ah kaasoo ku soo laabtay wadanka kadib markii uu deganaa Argentine muddo badan Cohen ayaa u guuray caasimadda Argentine ee Buenos Aires sanadkii 1961 markii uu tagay waxa uu dhex galay mujtamacii Carbeed ee halkaasi ku dhaqnaa February sanadkii 1962 waxa uu tagay caasimadda Suuriya ee Dimashq isagoo xambaarsan magaca Kamil Amin Sabit Mossad waxay si taxadar leh u qorshaysay xeeladaha uu adeegsanayo si uu xiriir ula yeesho siyaasiyiinta sarsare ee Syria saraakiisha militariga dadyoga saameynta ku dhex leh bulshada dhexdeeda iyo diblomaasiyiinta Cohen waxa uu sii waday noloshiisa bulshada sida uu ku soo qaatay Argentine waxa uuna bartay wasiiro badan waxaana uu gurigiisu marmarka qaar ahaa goob madaxda iyo qamaamuurtu isugu timaado isna waxa uu dhuuxi jiray xogaha ay isweydaarsanayaan isagoo marmarka qaarna si caadi ah isagala sheekaysan jiray Cohen waxa uu siiyay tiro fara badan iyo xogo sir ah oo ballaaran ciidamada Israa'iil intii u dhaxaysay sanadihii 1961 ilaa 1965 waxa uu diray sirdoonka fariimo cod ah oo toos ah waraaqo qarsoodi ah marmarka qaarna si toos ah ayuu xogaha foolka fool ugu gudbin jiray isagoo 3 mar si qarsoodi ah ugu safray Israa'iil
xogihii ugu muhiimsanaa uu gudbiyo waxaa ka mid ahaa socdaalkii uu ku tegay Golan Heights oo uu xoga sir ah ka ururiyay qalcadihii Suuriya ee halkaasi ku yaalay. waxa uu isu muujiyay mid naxariis u leh askarta hoos taagan qorraxda, isla markaana waxa uu ku beeray geedo meel walba halka ay u arkayeen ciidamada Syria dhirta qaar si naxariis iyo wadaninimo ku jirta loogu beeray. ciidamada Israa'iil waxay u ahaayeen bartilmaameedyo, waxaana taasi ay fududeysay in Israa'iil ku qabsato Golan Heights 2 maalmood gudahood. Cohen waxa uu booqashooyin isdaba joog ah ku tegay aagaga xuduudda koonfureed isagoo indhaha ku urursanaya xogaha meelaha ay ku jiraan ciidamada Suuriya. waxa kale oo uu ogaaday 3 qorshe oo qarsoodi ah oo lagu abuurayo 3 sadar oo isdaba joog ah oo isugu jira dhufaysyo iyo hoobiyeyaal. Cohen waxa uu awooday inuu ogaado in reer Syria ay qorsheynayaan inay weeciyaan marinka webiga Urdun oo ah isku day ay ku waayeyso Israa'iil khayraadka biyaha. waxa la sheegay in siraha Cohen ururiye ahaayeen kuwa muhiim ah ka hor qabashadiisii, taasoo keentay inay Israa'iil ku gacan sarreyso dagaalkii 6 maalmood. taliyaha cusub ee sirdoonka Syria loo magacaabay Ahmed Suwaydani ayaa u muuqday mid aan jeclaysan Cohen, waxa uuna Cohen u gudbiyay Israa'iil inuu ka cabsi qabo madaxa sirdoonka ee cusub. waxa uuna safarkiisii u dambeeyay ku tegay Israa'iil bishii November sanadkii 1964, wuxuuna cadeeyay inuu jeclaan lahaa inuu joojiyo shaqadiisa gudaha Syria. sirdoonka Israa'iil ayaa weydiistay inuu mar kale ku laabto Syria ka hor inta aanu bixin. bishii January 1965 mas'uuliyiinta Syria waxay kordhiyeen dadaaladooda si ay u helaan basaas heer sare ah iyaga oo adeegsanaya qalabka raadraaca ee Sofiyeedka oo ay ka caawinayeen khubaro Sofiyeed ah. ugu dambeynna ciidamada ammaanka Syria ee uu hogaaminayo madaxa sirdoonka Suwaydani ayaa jebiyay albaabka guriga Cohen 24 January, waxayna ku qabteen dhexdiisa isagoo warbixin u gudbinaya Israa'iil. Cohen ayaa lagu helay dambi ah basaasnimo maxkamad military, waxaana lagu xukumay dil iyadoo la raacayo sharciga dagaalka, isagoo marar badan la wareystay oo la jirdilay. Israa'iil waxay olole u gashay sidii loogu qancin lahaa xukuumadda Syria inaanay dilin Eli Cohen. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ee waqtigaas Golden Meir ayaa ololaha abaabuleysay, waxayna xukuumado badan ku qancisay in ay arrinkaas soo galaan, waxaana ka mid ahaa xukuumadaha midowgii dhacay ee Sofiyeedka, Belgiumka, Canada iyo Faransiiska. balse xukuumadda Syria waa ay ku gacan saydhay arrinka, waxayna ku dhawaaqday xukun dila. Cohen waxa uu qoray warqadiisii u dambeysay 15 May sanadkii 1965, taasoo uu qoray xaaskiisa isagoo oo leh waan ku baryayaa gacalisadaydii Nadia, ha ku lumin waqtigaaga inaad ka oydo wax tegay, nafsadaada ku mashquul adiga oo sugaya mustaqbal wanaagsan. Cohen waxa lagu daldalay fagaaraha Marjah ee Dimashq 18 May sanadkii 1965. Syria ayaa diiday inay u soo celiso meydka Cohen qoyskiisa oo degan Israa'iil. xaaskiisa ayaana warqad u dirtay madaxweynihii xilliga Xaafid al-Asad iyadoo oo ka raali gelinaysa wixii uu ninkeedu ku sameeyay dawladdiisa iyo dadkiisa, isla markaana ka codsanaysa meydkiisa. balse xukuumadda Suuriya waa ay diiday arrinkaas. Cohen ayaa Israa'iil u noqday geesi qaran, waxaana loogu magac daray xaafado iyo wadooyin door ah, waxaana loo sameeyay dhagax xasuusa. asani daawade waa diyaarintii Cabdicasiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed.